kusoo dhawaada taxanaha boqolka sheeko. Sheekadan soo socota waxaa lagu magacaabaa ha iibin raqiis. oo bari baa nin boqor ah iyo wasiirkiisa maaliyadda oo isla socda waxay u soo bixeen kormeer. Markii ay soo dhameeyeen kormeerkoodii ayay jidka waxay kula kulmeen nin oday ah oo weyn. Salaan kadib ayaa boqorkii wuxuu weydiiyay odagii ka waran xaalka labadii. Markaas ayaa odagii oo fahmay su'aasha boqorka ugu jawaab celiyay hadda 3 bay noqdeen. haddana mar kale ayaa boqorkii wuxuu weydiiyay ka waran kii fogaa. odagii baa isna ugu jawaab celiyay hadda uu soo dhawaaday. haddana boqorkii ayaa wuxuu weydiiyay ka waran kii xoogganaa. odagii baa ugu jawaab celiyay hadda wuu daciifay. ugu dambayn boqorkii ayaa ku yiri odagii ha iibin raqiis. odagiina wuxuu ugu jawaab celiyay waa ballan boqorow. hadalladaas ay isweydaarsanayaan boqorka iyo odagu wasiirku xabad kama fahmin waase la kala tagay. maalintii xigtay subaxeedii ayaa wasiirkii u kalahay guriga ninkii odaga ahaa si uu wax uga weydiiyo hadalkii dhex maray isaga iyo boqorka. tii koobaad ayaa odagii wuxuu dalbaday inuu bixiyo lacag 1000 dirham ah. wasiirkii waa ogolaaday. markaas ayaa odagii wuxuu yiri labadu waxay ahaayeen lugahayga oo hadda 3 bay noqdeen. tii xigtay marka la soo gaaray ayaa odagii wuxuu dalbaday 2000 oo dirham. wasiirkiina waa ogolaaday. markaas ayaa odagii wuxuu yiri kan fogaa wuxuu ahaa aragga oo hadda waa soo dhawaaday oo meel dheer ma arko. tii saddexaad marka la soo gaaray ayaa odagii wuxuu dalbaday labalaabka lacagtii hore oo ah 4000 oo dirham. wasiirkiina waa yeelay. markaas ayaa odagii wuxuu yiri kii xoogganaa wuxuu ahaa maqalka oo hadda aan gaboobay waa soo daciifay. markii ugu dambeysay ayaa wasiirkii wuxuu weydiiyay odagii sirta ku duugan dardaarankii boqorka. markaas ayaa odagii wuxuu dalbaday inuu bixiyo lacag 100,000 oo dirham gaaraysa si uu ugu sheego. wasiirkii waa ogolaaday. markaas ayaa odagii wuxuu yiri boqorku wuxuu ogaa inaad ii imaan doontid oo i weydiin doontid sirta ku duugan hadalkayga. wuxuuna igala dardaarmay inaan qaali ka iibiyo aniguna ballantii waan furiyay. intaas waxaa noogu dhan sheekadii ha ku iibin raqiis. la soco sheekada xigta.